ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo weliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda ayaa ku booqday deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho qaar kamid ah dadka abaaruhu ka soo barakiciyeen gobolada dalka kuwaasoo maamulka gobolka Banaadir u qaybinayay raashin kala duwan oo gargaar ah. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku jira kaamka Garasbaale waxa uu ka wareystay maamulka gobolka Banaadir iyo horjoogayaasha dadka barakacyaasha ah isagoo mid ra'iisul wasaare Khayre uu weydiinayay dadka barakacyaasha xaaladooda nololeed una muujinayay in dawladda Soomaaliya ay ka warhayso xanuunka ay dareemayaan ay la qaybsanayso. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu yahay mas'uulka ugu horeeyay ee dadkan soo booqda maamulka gobolka Banaadirna ay sameynayaan 3 xero oo ay degaan dadka abaaruhu ka soo barakicinayaan gobolada dalka ee soo gaaraya caasimadda Soomaaliya Muqdisho. maada ka gaarto ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aan ogsoonaa waqtigiisa ayaa wuxuu door biday inuu la qaybsado duruufta dadkan ay ku nool yihiin indhiis inuu ku soo arko marka nasiib wanaag waa ra'iisul wasaare ugu horeeyay ee dhex istaagay kaam ee dad masaakiina ku dhex galay ee gacanta la gelaayo waxay ku tusaysaa sida ugu dhimrinaya shacabka soo ula kurboonaya shacabka ayay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa shacabka waxaan rabnaa marka mudane ra'iisul wasaare inaan rarno dadkan oo barakacyaasho dhan aan suu geyno 3 meel oo calaamadayna meel waxay ku taallaa Kaxda meelna waxay ku taallaa Garasbaale meelna Dayniile ku taallaa 3daasaan rabnaa inaan isugu geyno. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan ee abaaruhu ay saameeyeen dawladda Soomaaliyana ay shaqada ugu horeysa ama ugu weyn ay ka dhigayso badbaadinta shacabkeeda. sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kula talinayaa una sheegayaa inay lagama maarmaan tahay inaan dib isugu noqono inay lagama maarmaan tahay inaan ka fikirno dad walaalaheena oo dalkeenna ku dhimanayo sidaad maqashaan mar walba waxaan ku soo celceliyaa dadka Soomaaliyeed sababtoo ah waxaan aaminsanahay sida kaliya oo dhibku uga bixi karna inay tahay annagu inaan isku tashano cidda wax keenaysana annaga inay ahaato cidda qaybinaysana annaga inay ahaato laguma noolaan karo baryo cid ma baryi karno sidaas daraaddeed haddii aad xoolo haysato fadlan xoolo keen haddii aad kiilo bariisa bixin karto bixi haddii aad kiilo bura bixin karto bixi haddii dhar badan aad haysato aadan isticmaalin qaar keen haddii aadan wax awoodin fadlan dadkaad u soo ducay. mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay warbaahinta Soomaaliya inay gacan ka geystaan gurmadka abaaraha isla markaana yihiin kuwa dad badan gaarsiin kara dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed. walaalahayda miidiyada ay hortaagan bahda saxaafadda waxa la soo gaaray waqtiga dalkiina dadkiina u helin karteen maanta ayaad mudan tihiin inaad dadka iyo dalkan u helisaan haddii laga fikiro warbixin siyaasadeed ama warbixin wax kale maanta dad baa dhimanaya warbixinta aad ka fikiraysaan ha noqoto sida dadka loo badbaadi lahaa. muddooyinka ugu dambeeyay waxaa duleedka caasimadda Soomaaliya Muqdisho soo gaarayay dad ay abaaruhu ka soo barakicinayaan deegaanadooda gargaar kala duwan ayaa la gaarsiinayay inkastoo ay yihiin kuwo wali u baahan gargaarka dadka Soomaaliyeed maadaama ay xoolahoodii iyo hantidoodii ku waayeen abaaraha ka jira deegaanada ay ka soo barakaceen. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada